Xayawaanaadka gurjoogtu kuwa dadka la nool, mararka qaar waxa ay sameeyaan wax laga naxo mase laga argagaxo. Ma noqon karaan had iyo jeer xayawaan deggan oo daacad ah oo amarka u hoggaansamo, laakiin mararka qaar waxay u istaagayaan arrin muhiim ah kaasoo farxad geliya aadanaha aad ay ula yaabaan. Saad arrintan u ogaatid, YouTube-ka noo garee siduu dad badan u gaaro. Subscribe-kana hanaga ilaawin, dhanka Facebook-gana follow noo dheh, nana soo raac mahadsanidin. Mukulaashan aad arkayso waxa ay leedahay sheeko xaqiiqo ah taasoo aad loola yaabay. Waxa ay ka soo muuqatay fiidiyow internetka lagu baahiyay taasoo ay duubtay kaamira ku dheganayd guryaha Jayneeska mid ka mid ah. Mukulaasha ayaa waardiye ka haysay wiil yar ee guriga looga tagay. Wiilkii yaraa ayaa isku dayay inuu u gurguurto dhanka iyo burjikada. Ugu dambeyntii mukulaashii ayaa isku dayday khatarta ku soo aadan wiilka inay ka badbaadiso. Ugu dambeyn waa ay ku guuleysatay qorshihii loo idmaday loona tababaray. Dadka Jayneeska iyo dadka dunida ayaana aad arrintaa ula yaabay. Maroodigu waa xayawaan saaxiib la ah dadka. Nin lagu magacaabo Trek Thomas waxa uu khabiir ku yahay tababarada xayawaanaadka. Waxa uu imtixaan ka qaaday maroodiyaal uu siminaar tababar u furay. Waxa uu ilaalo ugu dhigay xeebaha Ireland mid ka mid ah. Master Trek Thomas ayaa isku riday xeebta siduu u eego siday u badbaadinayaan in kale inuu ogaado. Laakiin maroodiyaashii mid ka mid ayaa Trek Thomas u maleeyay inuu biyaha ku dhacay. Waxa uuna isku dayay inuu ka soo bixiyo ka badbaadiyo. Waa uuna ku guuleystay. Ugu dambeyntii bannaanka ayuu keenay taasoo ugu dambeyntii maroodiyaashii xalfad halkaa loogu dhigay billadna la wada guddoonsiiyay taasoo la yaab noqotay. Kani waa wiil yar kaasoo kula damaashaaday ehelkiisa beer yar. Hooyadii ayaa ka tagtay carruurta siday wax ugu soo iibiso. Wiilkii yaraa ayaa dhanka kale waddada aaday, laakiin nasiib xumo nin ayaa isku dayay inuu wiilka afduubto. Laakiin ay ilaalo qaran ku jiray oo qoyska lahaayeen ayaa ninkii weerar ku soo qaaday siduu ugu badbaadiyo wiilka. Laakiin nasiib wanaag waa uu ku guuleystay taasoo dadka aad ugu yaabisay. Social media-huna aad loo falanqeeyay. 2014 waxaa ka soo muuqday kaamirooyinka waddada lagu dhejiyay ee Los Angeles ee dalka Mareykanka wiil yar kaasoo jira da'da 4 sano. Wiilka ayaa ku xarakoonayay baaskiil meel u dhow gurigiisa. Waxaa soo weeraray eey, laakiin waxaa ka badbaadiyay mukulaal ilaalo qaran ku jirto ay ehelka lahaayeen oo meesha ka ag dhoweyd. Hooyadii Jeremy ayaa soo gaartay si ay u eegto wiilka xaaladdiisa. Wiilka dhaawac yar ayaa bowdada ka soo gaaray. Laakiin mukulaashii la magac baxday Tara ayaa noqotay mukulaal caan ka ah dunida. Billad geesinimo ah ayaana la guddoonsiiyay. Dhammaan maroodiyaashu ma ahan kuwo deggan oo amarka qaata. Mararka qaar khatar ayaa lagala kulmaa, khaasatan marka uu dareemo cabsi. Waqti koox dad ah oo reer Botswana ka soo jeeda una socday ugaarasho waxaa soo weeraray gaarigii ay saarnaayeen maroodi. Goor uu ku dhowaaday gaariga inuu la gediyo, kooxdii ugaarashada ayaa qayli afka jabsaday. Kadib maroodigii ayaa xoogaa ka debciyay weerarkii uu ku hayay. Haddaad aaminsan tahay xayawaanka la yiraahdo qoodow laga yaabee inaad magac kale u taqaano uu yahay xayawaan dadka ka cabsada, waad qaldan tahay. Bal ila daawo sida uu u soo weeraray nin kubadda golofka ku ciyaaraya meel ka mid Australia. Ninkii waxaa la yaab ku noqotay inuu qoodow dhankiisa soo aado, weliba dharbaaxi kulul uu ku rido. Ugu dambeyn ninkii gadaal ayuu u seexday, laakiin nasiib xumo dhulkii ayuu ku dhacay. Qoodowgii waxa uu bilaabay ninka inuu shaqada ka cabo. Ninkii wax sawirayay kaamirada ayaa ka dhacday. Fiidiyowgii ayaa halkaa ku go'ay. Gadaal dambe waxaa la arkay ninkii golofka iyo saaxiibkii oo baabuurka raacay. Qoodowgiina uu daba bursanayo. La yaab ayayna dunida ku noqotay.
2020 fiidiyow lagu baahiyay barta internetka waxaa ka soo muuqda daanyeer yar kaasoo soo aaday carruur gurigooda hor fadhiyay. Daanyeerkii ayaa mid ka mid qabsaday carruurta, waa uu la cararay. Nasiib wanaag, qof ka mid guriga ayaa ku soo baxay oo daanyeerkii yaraa ka dhigay, waxayna noqotay arrin aad loola yaabo. Libaaxu waa xayawaan aad looga cabsado oo dilaa ah, xataa haddii la tababaro. Balaya eega fiidiyowgan, waxaa ka soo muuqday libaax yar borograam TV ka socday kaasoo laga leeyahay dalka Mexico. Libaaxii yaraa ayaa hal mar indhihiisa qabteen gabar yar oo ka mid ahayd dadkii borograamka ka soo qayb galay. Kadib hal mar ayuu ku haaday, waxa uu bilaabay inuu afka la aado. Dadkii daawanayay iyo dadkii ka soo qayb galay ayaa aad ula yaabay arrintii. Argagax ayay ku noqotay, laakiin nasiib wanaag ciidamada ilaalada ayaa ka soo gaaray. Libaaxii meesha ayaa laga kaxeeyay, borograamkii TV-gana waa la joojiyay. Waa dhacdo sheeko oo naxdin leh. Magaalada Leningrad waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan dalka Ruushka. Beer yar oo halkaa ku taalay waxaa soo booqday wiil dhalinyaro ah oo ka yimid dhanka iyo dibadda. Shabeel yar oo meel ku jira ayuu isku dayay inuu cunto siiyo, balse shabeelkii meesha goobta uu ku jiray maysan xirneen. Hal mar ayuu shabeelkii ku soo haaday wiilkii, dhulka ayuu dhigay. Waxa uu bilaabay inuu afka la aado, laakiin dadkii dalxiisayaasha ayaa bilaabeen inay shabeelkii dhagax ku tuuraan siduu u baraarugo oo u joojiyo arrintii. Laakiin ilaalada ayaa hal mar ka soo gaaray wiilka, waa ayna ka dhiciyeen. Wiilkii laakiin dhaawac culus ayaa soo gaaray, waxaana loola cararay dhanka isbitaalka. 2016 beer xayawaanaadka lagu xanaaneeyo oo ku taala China, taasoo lagu magacaabo Baltic Wildlife, waxaa soo booqday qolo reer China oo rabay in ay halkaa filim daraama ku dhigaan. Marka ay soo gaareen beertii, baabuurkii ayay ka degeen. Qofka ugu horreeyay dega waxay ahayd atariishada daraamaha, laakiin nasiib xumo shabeel beerta joogay ayaa ku soo cararay atariishadii ayuuna ku dhegay. Wayna dhib badnaatay inay qolada kale halkaa ka fujiyaan. Way isku dayeen laakiin waa u suurtageli weysay. Laakiin qolada beerta oo kaamirada kala socotay ayaa halkaa ku soo cararay. Ugu dambeynna atariishadii daraamaha ayay ka fujiyeen shabeelkii. Dhaawac culus ayaa soo gaaray, isbitaalka ayaana loola cararay. Dhakhtarka ayaa sheegay inay dhaawaceeda yahay mid halis ah. Halkaad warbixintan kala socotaan waa Soomaaliya Media Action. Mahadsanidin.